بسم الله الرحمن الرحيم مهمة ay leedahay maalinta biyaha adduunka horta maanta oo kale 22 Maarso horta caalamka oo dhan horta waa laga xusaa maalintan biyaha laakiinse muhiimadda ayaa waxay tahay مثلا ba sanad kasta 22 markay bishu ay tahay oo la xusaayo macnaha waxa haboon in daraasaad la soo sameeyay sanadkaasi oo dhan assessmentiyo ama muxuuha maaragtay qiimeyn iyo baaritaano iyo maxay too maaragtay qorshooyinkii sanadkii hore la degsaday wixii ka fulay wixii aan ka fulin la soo bandhigo ceelasha uu yeelan karo wadanka gudihiisa ama tirada ay la eegyihiin daraasaad dhameystiran maanta oo kale in la soo bandhigo isla mar ahaantaana loo soo bandhigo mujtamaca ama bulshada qorshooyinka ka degsan sanadka soo socda meesha loo socdo iyo waxyaabaha la soo kordhin karo si macluumaadkaasi la isku weydaarsado ama la isugu soo gudbiyo loo qabto maalinta noocan oo kale ah oo ah maalinta xuska 22 Maarso maalinta biyaha tan kale oo ah tan arinta waxbarashada manhajka waa muhiim in lagu soo daro muxuu ahay maarteen qiimaha iyo awoodda biyaha bini'aadamka uu leeyahay ilmaha marka ay yar yihiin مثلا fasalka koowaad oo kale markii lagu soo barbaariyo qiimaha biyaha uu leeyahay isticmaalkiisa iyo muxuu ahaa maaragtay iyo qaabka ay uga fikri lahaayeen sidii berri bulshada ay u dhaqaalaysan lahaayeen biyahooda ama ay ula soo bixi lahaayeen iyo wixii markaas la mid ah ilmaha wacyigooda markii uu buuxsan yahay ama wacyigooda uu dhameystiran yahay waxa muhiim ah in markay weynaadaan ay ogaadaan qiimaha biyahaas uu leeyahay waa sida loo beeqaamiyo sida loo isticmaalo iyo qaabka loo la soo baxa intaba warbaahinta kaalin aad iyo aad u muuqata oo aad iyo aad u weyn ay ka qaadataa baahinta arrimaha biyaha ku saabsan طبعا برنامجyada laga diyaariyo biyaha ahmiyadooda faa'iidadooda iyo waliba beeqaamintooda barnaamijyadaas iyaga waa iska joogto warbixinadoodana waa iska joogto hase ahaatee waxa wanaagsan in la sameeyo doodo sidan oo kala ah oo joogta oo bulshada lagu wacyigelinayo si miidiyahana ay ugu suura gasho iyagana inay u sii gudbiyaan bulshada sababta oo ah haddii khubarada ka shaqeysa arrimaha biyaha iyaga qudhoodu ay ka qayb qaataan barnaamijyada iyo doodaha markaas la isla wadaagayo miidiyahana ay u gudbiyaan bulshada waxa hubaala in wacyiga bulshada iyo baraarugoodaba uu noqonayo mid aad iyo aad u sareeya idaacaduhu ama warbaahinta maalin walba waxay bahayaan gaar ahaan waayadan dambe abaaraha dhacaya waa biyo la'aan haddana waxaa markii roobabkii iyo muxuu maartay gugii iyo barwaaqadii markay bilaabato haddana waxa warbaahintu ay gudbiyaan haddana fatahaado inay dhacaan laakiinse waxa muhiim ah in midaas laga gudbo mar allaale iyo markii roobka uu da'o biyahaasina aan qorshe loo samaynin biyahaas waxay noqonayaan kuwa ziyaada marka barnaamijyo ku saabsan arrimahaas qudhoodu waan diyaarinaa bulshadan waa u gudbinaa ka warbaahin dawlad ahaan sidoo kale abaaraha maxaa keenay iyaga laftirkoodu waa su'aal iyada laftigeeda meesha taagan sanad walbana soo laalaabata anagoo haysana haddana biyo aad iyo aad u tiro badan oo dhulka dhexdiisa ceygaaga iyo waliba koow waxaa ka ah marka nabaad guurka ayaa ka ah marka doorka warbaahinta waa door muuqda mar walbana barnaamij ay ka sameeyaan warbixin ay ka sameeyaan doodo ay ka sameeyaan kaalintooda way qaataan horta waxaa loo baahan yahay qorshe qaran oo dhaba in la helo ama in la soo baxo biyahan dhulka hoostiisa ceygaaga sababtoo ah hadda fiiri tusaale ahaan wadanka Mareykanka ama Canada boqolkiiba 51 biyaha isticmaalaan dhulka hoostiisa ka soo saaraan annagana maxay ahayd maanta dhulkeena biyo badan oo tir badan dhex ceygaaga abaartan waxaa looga bixi karaa kaliya inaan la sugin cirka ee dhulkana in la fiiriyo ceelasha la qodo dadka loo soo saaro tuulo walba magaalo kasta degmo kasta in ceel loo qodo ceelashaasi xoog la isugu geeyo kadibna meeshaasi abaar dambe cid maqlaysa ay ma jirto maalin wal hadda wax yar kadib gugiya bilaabanaya
webigii waa soo buux dhaafinaya webiyada inta hadda waxyar ka hor sida la sheegay qashin meeshii laga buuxiyey qashin kalimaha ciidna waa buuxiyey webigii oo camiiqa ahaa ama dhiibka ahaa waa soo buuxsamay marka meel ay biyihii maraan male meeshii isbeeskii ay yaraaday biyihii waxay danta ku qasbaysaa marka inay fatahaad ay sameeyaan sidaas darteed marka abaartan waxaa looga bixi karaa in biyaha dhulka hoostiisa ku jira lala soo baxo ceelal badan la qodo